ku dhawaad koob ay ka qayb galeen 12 koox soconayna hal maalin isla markaana lagu maamuusay Ciidul Fidriga ayaa ku soo idlaaday garoonka Rinkeby magaalada Stockholm. daawadeel wali waxaa ka socda garoonka kubadda cagta ee Rinkeby ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden ciyaarihii loogu talagalay ama lagu maamuusay maalinta ciida. ciyaaraha kan loogu talagalay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku sugan dalka Sweden iyadoo xasuustu ay tahay xasuus mudan tahay in ciyaarahan ay ka soo qayb galeen magaalooyin ka fog magaalada Stockholm iyadoo dhalinyarada ka yimid oo qaarkood aan wareysanayn shucuurtooda ay ka muuqatay farxad aad u sareysa. magacaygu waa Cabdir Istaahir Xuseen waxaa ka soo qayb galay ciyaarahan maanta loogu talagalay munaasabadda ciida ee ka socdo caasimadda waddanka Sweden Stockholm gaar ahaan garoonka Rinkeby. wallahi ciyaaraha si qurux badan u socdaan hadda koox loo dheelayaa marka si qurux badan waa maadaama ciida ku sabootiyana maadaama bishay barakasnida khayrka ka baxnay marka ma sha Allah dad Soomaaliya soo abaabuleen dhalinyarta waa wada Soomaali ciyaarayso munaasabadda ciid u dabaaldegayso marka ma sha Allah si qurux badan oo socda ciyaaraha waana mahadsantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وسعيد محمد مرسمي وحنا كمان مقالة أوربرو وحنا أركع عيارها إني أدو ناكسيهين محايا اللي وحنا كل مساحب بدأ مرة يقدم بيسي عيارها نسيدي وناكسين أسعدان ما شاء الله وحنا لنا مركل عيد وناكسن عيد مبارك. soo haray ciyaartii kama dambaysta ahayd Rinkeby Stars iyo Yarfa waxaana 3-1 guusha ku raacday Rinkeby Stars. gabagabadii ayaa koob iyo hadiyado waxa la gudoonsiiyay kooxihii koowaad iyo labaad kala galay iyadoo sidoo kale bilado la siiyay ciyaartoydii ciyaar wanaaga muujisay. guddiga koobkan Ciidul Fidriga dhigay ayaa inoo sheegay inay ugu tala galeen in dhalinyaradu isla qaybsato farxadda iskuna bartaan. koobkan ayaa ah kii ugu horeeyay ee noociisa habceenkan ahna loo dhigo magaalada Stockholm tiyo laga dheehan karay bulshadii ciyaartoydii ka soo qayb gashay farxadda ay u qabeen koob noocan ah. Maxamed Yaasiin Xaaji TV-ga Kalsan magaalada Stockholm dalka Sweden.